waa jid ka mid ah jidadka ugu muhiimsan caasimadda Hargeysa kaasi oo ka yimaada garoonka diyaaradaha ee Cigaal waxa uu ku dhex yaallaa xaafad ka mid ah xaafadaha ugu bilicdasan magaalada isla markaana ay degaan dad nooc walba leh oo u badan maalqabeenno iyo ajaanib marka aad dusha ka daawanayso waa xaafad qurux badan waxaanad arkaysaa guryaha daaraha dhaadheer ee bilicdasan balse quruxdaasi waxay muuqataa oo keli ah inta uu jiro iftiinka cadceedu nalka gaadiidka halkan maraya ayaa ah iftiinka keliya ee halkan ka jira xilliyada habeenkii waxaana adag marka iftiinka ama nalka gaadiidka halkan laga waayo inaad si fiican u aragto xitaa qofka hortaada maraya taasi oo mugdigan uu ku abuuray cabsi dadka wadadan isticmaala gaar ahaan haweenka halkan mara oo ay ku adag tahay in ay maraan mugdigan waxaa naga haystay madow aad iyo aad u badan cabsi leh taasi ahaatay habeenkii marka anigu waxaan nahay hooyo halkan ku ganacsata qooda ganacsadayaasha ka mid ah leemida talowgeeda joogta marka habeen walba waxay igu noqotay in anigu aan talaabo oo xaqii madowgii maro marka waxay noqotay habeen kasta in raadiyo cid ka haysa cid ka haysa iyo go'aan ma jirto wax kolba ilaahay siyaasi ka xiyay mooyaan mugdiga badan ee halkan ka jira ayaa sidoo kale sababay khasaare naf iyo maalba leh iyadoo shilal badan ay ka dhaceen halkan gaar ahaan xilliyada mugdiga ah ee habeenkii dhibaatooyinka ugu badan ee lagu qabo waxa ka mid ah inay tahay habeenkii oo kale wada aad u madow xaqiiqatan iyadoo ay ka fog yihiin isbeesida ay ku xidhan yihiin laydadku saa darteed waxaa muhiima in waxa weeyaan lighting la geliyo si waxa weeyaan loo yareeyo khatarta ka iman karta habeenkii wadadaas oo runaantii dhacdooyin badan ay ka dhaceen iyadoo ay sababayaan madowga badan ee waxa weeye ay leedahay gawaarida qaarkood oo waxa weeyaan iftiinkoodu uu yar yahay horta wadada alxamdulillah wada aad qurux badan oo ilaahay ka soo dadka dhisay iyo dawladdu maxad bay nagu leedahay haddana iyadoo aadkaas qurux badan si dhibaato keentay dhibaatadaas oo aad habeenkii oo keenay leed la'aantu waxa ka mid ah sometimes qisadii ugu xumayd ee anigu ku arkay intaan halkan joogay beeshinadeeda ka mid ah oo waliba inan iyo hooyadeed ahayd waxaa dhacday inay dawada ama cunto ugu soo doontay dabada maxaa dhacday in maamadii gaari jiiro adeerxam bart bay ku dhimatay qolkii maxaa ku hadhay beeshinkii waxay ahayd sidee lagu sheegi karaa inay ilmihii hooyada dhimatay xanuunsanaysay taasi waa dhibka ugu weyn ama qisadii ugu xumayd shaqaale ka mid ah nagaga dhintay malaha 2 iyo 1 way nagaga dhinteen adeerxam raaximiin marka anagoon dawladana saarin wax culaysa ama wax dalabso ah waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabka Soomaaliland inay wadankooda tan iyo wixii kala dayacanba inaan garab iska siino waliba tan ugu dhib badantay uguna hay weyn leedahay waliba sida ugu dhaqsaha badan leh aan light u sameysano hadii ilaahay dhaado